magaalada Wajaale xarunta ganacsiga Soomaaliland ayaa maanta waxa ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay gebi ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Wajaale isugu soo baxeen ujeedada banaanbaxan ayaa ahaa sidii ay bulshadu u taageer lahayd safarkii madaxweynaha ee dalka Guinea maamulka magaalada Wajaale ayaa qayb ka ahaa banaanbaxani ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay waxaad ogaataan cid alla cid waxay noo haysaa inaanay jirin ilaahay mooyaane dawladda aan jaarka nahay ee Soomaaliyana waar wixii had hore nooga barateen maanta naga heli maysa baleen waan idin qaldanay qaladkiina dib uga dhacayo laba dawladood jaaro oo daris wanaaga aynu ahaano inta hadda diidan waxaad ka heshaan badleedii wadanka Guinea hambalyaanu leenahay Afrikana waxaanu leenahay sidaa Guinea ku dayda waya walaalayaal maanta waxaan hambalyeynaa shacbiga reer Soomaaliland waxa kale inuu walaalayaal hambalyeynaya madaxweynaheena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi guusha ay ka soo hooyeen dalka Guinea ayaynu hambalyeynaa dawladda maanta xamar ka jirta ee taagta daran waxa weeye shalay toole iyadoo intan ka abood badan oo farmaajo adeerkii horkacayo ciidankii Afrika ugu xooga badnaa ayuu duhur cad waxa weeye dhabarka ka jabiyay madaxweynaha maanta talada dalka haya guulsida Muuse Biixi Cabdi ha noolaado guulsida ha walaalo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waftigiisii ballaanay uu ku tagay wadanka Guinea sida quruxda badan leh loogu soo dhaweeyay guusha uu ka soo hooyay ayaynu isku soo baxnay inaynu ka mahad celino kuna muujino dareenkeena oo ku soo dhaweyno soo sidaama kam dawladda Guinea waa dawladda hambalyeynayno madaxweynaha hambalyeynayna shicibkeena hambalyeynayna madax baanu leenahay maamul wanaagsan baanu leenahay ciidamaanu leenahay arrin fiican baanu leenahay nabadgelyaanu leenahay nolol wanaagsan baanu leenahay madaxweynaha noo taliyaanu leenahay ومحمد عبد عمر محمد ودين ورك وربعين SBC مقالة وجالي